السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا xubinteena ciyaaraha ee warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed. xubinteena ciyaaraha waxayna kaga imaanaysaa xarunta gagada Banaadir Stadium oo galabta ay ciyaar xiiso badan ay ku dhaxmartay kooxda kubadda cagta Safana iyo kooxda kubadda cagta LLBB Genyo. ciyaarta oo ahayd mid xiiso badneed ayaa waxaa gagada soo buux dhaafiyay taageerayaasha labada dhinac oo saddex markii loo dhigo laba dhinac ay ahaayeen taageerayaasha kooxda kubadda cagta LLBB Genyo waxaana boqolkiiba 60 ciyaarta gacan sareysay kooxda kubadda cagta LLBB Genyo oo sacab iyo mashxarad ka helaysay taageerayaasha kooxda kubadda cagta LLB. qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay 26 daqiiqo ayaa waxaa gool dhalisay kooxda kubadda cagta LLBB Genyo waxaana u saxiixay xidiga lambarka 9aad u xirta kooxdaasi Cabduqaadir Shariif Mukhtaar Ninje oo dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee horyaalka heerka koobaad ee dalkeena hooyo. Safana oo xaaladda ku xuntahay sanadii horena ka soo baxday horyaalka heerka labaad waayo aragnimo badan aanan ka haysan horyaalka heerka koobaad ayaa waxa ay daqiiqad kadib markii goolka laga dhaliyay waxa ay sameeyeen laba bedel oo isdaba joog ah waxaana qaybtii hore ciyaarta lagu kala nastay 1-0 oo ay hoggaanka ku hayso kooxda kubadda cagta LLBB Genyo. qaybtii labaad markii la isku soo laabtay ayaa waxa mar kale gool dhalisay kooxda kubadda cagta LLB Genyo waxaana u saxiixay mar kale Cabduqaadir Shariif Mukhtaar Ninje oo noqday ciyaaryahankii labaad ee laba gool ka dhaliya tan iyo markii uu bilowday horyaalka dalkeena hooyo. 2-0 waxaa lagu qaarijiyay kooxda kubadda cagta Safana oo ah koox haatan dib ugu soo laabatay horyaalka heerka koobaad ee dalkeena Soomaaliya. ciyaarta markii ay soo ilaatay ayaa waxa ay noo suurto gashay inaynu weydiino Cabduqaadir Shariif Mukhtaar Ninje sida uu yahay dareenkiisa maadaama kulankii ugu horeeyay uu ciyaaray horyaalka heerka koobaad ee dalkeena Soomaaliya kooxdiisana u suurto geliyay inay guusha raacdo waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dareenkayga aad u kacsan yahay anagoo kulankii koobaad ka dheelo horyaalka Soomaaliya Serie A kuna biiray kooxda LLB Genyo كلكي كوالا عندنا ورياض سدنا السدينات عندنا لو جول أو جوش كجارتي يعني كوحدة هذا هو فرح سنة من سكول من كلك كلامك سأقول عليه كوحدة كبدأ عكس علما عاد سفلنا سان كوحدة سوا كوحدة ورياض الدفاع عنيسة وحنكفلنا لنا النتيجة في عن بكون أنا جا ولي أمبيتين كان ريكورد كان ولي نجيبين إن شاء الله حرجين أمبيتين كان يوصل ماشي الساعة. دانك كله وحكله ورئيس إنه لا يلا معلنك كوحدة كبدأ عكس سفانا عبد محمود معلن عبد بوله waxaana uu sheegay in kooxdiisa uu wax u dhimay kaarkaas ee loo taagay ciyaaryahan Cabdullaahi Cali Axmed oo ciyaarta bedel ku soo galay qaybtii hore. wallaahi dareenkeena anaga doonay wax badan dheelayay wixii guuldarada labada boqol ka sameeyay marka waxa waaye guuldar markay timaado qalabka meesha ku jiro iska saxle macnaha ay ku tiri guuldarada wax kale naga ma dhiman waana si doonaa hadda alle والله مروا بحواي وناسين وين ليش عيار أنا تغييرات عكسية ديرن عسير شيء عندنا معناها واحدة مروا برأسها أغلبني عيار وحنا كان أنا بوزيشن أنا وفرمان تحصل معنا كانت مركا هذا كلن سيتويشن كادين معنا وحكاية بدلنا بوش هذه بدرة وخلاص كبدلنا مركا واصحنا دارد نوع بدرة إن شاء الله. dhanka kale kulanka xiga ayaa waxa fooda isdari doona kooxda kubadda cagta Elman iyo Banaadir Sports Club oo labadaba ku wada ballansan gagada Banaadir Stadium maalinta birita ah. labadani koox ayaa xil ciyaareedkii hore waxa ay ku soo wada guuleysteen
koobka General Daud ay ku soo guuleysatay kooxda kubadda cagta Banaadir Sports Club iyo Elman oo ku soo guuleysatay horyaalka dalkeena hooyo ee Soomaaliya. kulankani adag ayaa waxaa ka hadlay Anis Cali Maxamed oo kamid ah macallimiinta kooxda kubadda cagta Elman, waxaana uu sheegay in kulankani ay la yeelan doonaan Banaadir ay u diyaar garoobeen in ay ka adkaadaan. Elman ahaan oo ku xisaabtamayna kulanka bari oo aan ciyaarayno Banaadir Telecom in sha Allah uu noo noqon doono ama noo noqdo kulan wanaagsan oo bilow fiican in sha Allah. waxaad rajaynaysaa in aad ka adkaataan kooxda kubadda cagta Banaadir? Yes, waxaan rajaynaynaa in sha Allah tacaala dadaalka iyo juhdiga ee macallimiinta ay siiyeen maamulka naadiga ciyaartooyda intaba dadaalka ay bixiyeen macallinka macallin Yuusuf macallin Umar aniga maamulka inteeda kale ciyaartooyda dadaalka aan bixinayna maalmahan ba aan bixinayna waxay ahayd in tartamada la qabanayo horyaalka in sha Allah guul ka gaarno. waxaana ka mid tahay tartamada la qabanayo kan noogu soo horeeyo in sha Allah inaan guul ka gaarno niyadina way ku jirtaa ilaahna waan ka rajaynaynaa in sha Allah. ma malaynaysaa in kooxda kubadda cagta Banaadir aad ka adkaan doontaan berrito? markii la fiiriyo niyad ahaan markaan ka hadalno iyo awood ahaanba intaba waan jecelnahay inaan ka badano in sha Allah haddii Ilaahay raaco. Elman iyo Banaadir ayaa ah laba koox aad ugu xifaaltama ciyaarta kubadda cagta, waxaana kulankoodii ugu dambeeyay ay wada kulmeen Super Cup-ka dalkeena Soomaaliya 6 maalin ka hor, iyadoo 5 iyo 4 rigoorayaal ay ku adkaatay kooxda kubadda cagta Elman, sidaasna koobkii kala hayantay gagada Banaadir Stadium ee degmada Cabdicasiis. intaasna waxaynu ugu eegdaawadayaal xubinteennii ciyaaraha ee warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.